kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa saaka tukaday salaada Ciid al-Fidriga waxaana masjid jaamaca magaalada Hargeysa shacabka kula tukaday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada waxaanu madaxweyne ku-xigeenku shacabka ugu hambaliyay munaasabada Ciid al-Fidriga waxaan hambaliyo u dirayaa dhammaan shucuubta islaamka meel joogaanba gaar ahaan shacabka Soomaaliland dibadda gudameelu joogaba waxaan leeyahay hambaliyo ku ciida caafimaad bashbashiyo barwaaqo waxa ilaahay idinka rajaynayaa in sanadkiisa ilaahay noo gaarsiiyo caafimaad qab iyo bashbashiyo barwaaqo inta markaa ka gudbo waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland waxa la inooga baahan yahay muddo 3 sano qarankani soo jiray dadaal adag soo galay gacmihiisu isku taagay isagoon taageero badan caalamka helin وليس waxay noo dhiman wada dheer iyo noo dhiman wadada dheer waa himiladaan higsanay ahaydaan inaan gaadhno qaran madax banaan inaan gaadhno iyo noo dhiman waxa la taasina waxay ku imanaysaa dadaal dheer iyo wada jirkeena iyo wax wada qabsigeena iyo inagoo dhan wada jeesana ummadda reer Soomaaliland runtii cadow badan bay leedahay walaaliheen Soomaaliyeed oo 1960 bishii Juun 6keedina waa caalamka qaadanay aynu la tagnay waa dadka koow adeegyada kamida ee wali aan jeclayn qarannimada aan dhisanay inoo taameerato adeegyadu maadaama fara badan yahay waxa loo baahan yahay in si wada jira aynu gacmaha isku qabsano maskaxdeena iyo muruqeena waa taan ku soo dhisnay muddo 3 sanadood ee maanta ninkii garanaya sidii hayd wadankani waa sidii u burbursanaa maanta quruxdiisa wala ku marayo waxaan ku gaari karnaa inta hadheer wada jirkeena u gaari karnaa waxaan leeyahay walaalaha macaaridka imaam baa ilaahay noo sameeyay dadka islaamka waxayna tujinay waa markaa masaajid joogno imaam bayna tujiyaa imaamkaasi hadduu in yar ka khaldamo wax ka khaldamaan aadaab baa jirta ilaahay noo baneeyay oo lagu toosinayo subxaanallah baa la yiraahdaa macaaridka waxa looga baahan yahay bini'aadamku inta hawsha haysaay qabyana way jiri marwalba daliil way jiri nin hawl hayaa wax way ka khaldami karaan laakiin aadaabta toosinta aan laga tagin oo subxaanallah raasi hal way kaado yaan macaaradu noqono in mar walba wixii kor loo qaadaba in la caariyo inaga noqon malay macaaradku si wanaagsan oo aadaab leh hadduu wax sheegay haw sheego madaxweyne ku-xigeenku waxa kale oo uu sheegay in xukuumad ahaan ay cambaareynayaan duqeymaha ay Israa'iil ku hayso shacabka Falastiin waxa kale runtii maanta halkan aad iyo aad si la socono shacabka reer Falastiin oo islaama waxa ku socda runtii xasuuq baa ku socda waxaan aad iyo aad u cambaareynaa falka yuhuuddu kula kacayso shacabka reer Falastiin ee maatada waxba galabsan lagu garaacayo maartay diyaaradaha iyo maartay baabadaha aad iyo aad baan ka cambaareynaa daynu islaamanahay waana ka soo horjeednaa runtii waxaan leenahay hal laga daayo dadka maatada dilka fooshxun ee loo geysanayo caalamka beesha caalamka waxaan leenahay yaa la iska indhatirin dulmiga ka socda ee ummadda reer Falastiin lagu hayo Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa